بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وحنا لك السلام يا أمة الصوماليات. وما كنت سابق هذه إذا عتبة وحوي وندين عمليين يا ولو أن كمدها إذا عدن مدري ديريد إذا عدن أرجع زبالة ده أن كل شيء أساسي شيء ولو أننا نقولين صادق هذه إذا عدن ودين عمليين يا عد زبالة ده أقوى شيء runtii socdaalkaygu wuxuu ahaa halkan waxaa ka dhacday dhibaatooyin oo marar badan soo noqnoqotay 3 maalmood ka hor waxa weeye waxa ka dhacay wax badanaa ka dhaca muqdisho aan ka dhicin gobolada dhexe iyo waxa weeye central Soomaaliya midna marka aan saas leeyahay waxa dhacda muqdisho xamar oo kale إن هوتيلديدا كود يعني لود وقت كستا أما مارين أما همين سيدي قدام بيتو كله مركي لقاي مكة المكرمة وكله هرا على كود يا بينمو يدو الله يسكتشي فوق ودوسع هذه النمو أيا وحوي لقب بالله بي هالمرة وحي كور هلين رساسيو ور إلا كود دي دور رباعي السعودي خسارة بدن أو دمشق داو على مدى وسود جارين دب بدن وكل فواين حنت بدن وكل مصي تدويني وكل بركعي هكذا أنا قدام بيسي أباب الزمريب كسعودي هي برعيل هي هورشة وحا ماشي اللي جرى مياران وحا لقيته توري هي هوبيال هي وحوي هوب كلا دوين ولو كانت معناه بنقول كرتوا وجبنا أما نقول كرتوا وحوي ورر ولو نبنا إلى أمام البدن دون سمرات لجوده بتكي شقيت كها ولي مجال كبس ونقول إذا كنت قلت ذي شوغان هذه international community تقول ما إيمان بودي سوماليا ودحا ما إيمان وحكتشر وحان يعني الكوب كرين أراد يأبار بشي مارسو وكل إدراء سوماليا قد مرس ومساكين وحما هيستا اسم دانتيه دشيدا مرس ايا وحوي انت دجال كودي لغو اوغي قدر الدبده كجوغي ديرا هوستو كجيرا صادق واتاي امباسادور طبعا مسؤول باد او تahay horey مسؤول باد ugu soo hadana dabcan markan kadib waad u noqon doontaa dadkan ishaya labada dhinac oo inta badan ba wiiliya adeerkiis iyo wiiliya abtigiis ah ma la xiriirtay dhinacyadan ishaya si arinta xal loogu helo intii markii hore waxaan islahaa dagaalkan walaalaha ama u dhaxeeya in horta ayaan darada ugu weyn waxa weeye deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed iyo warbaahintuba waxay moodaan in halkan uu ka socdo dagaal hal beelo isku mid ah dagaalka ka socda xeraale ma aha dad isdilaayo walaalo beela waa dagaal siyaasadeed waa dagaal araadigi ahlu sunna wal jamaa ee la baxay sufa garabkii macallin maxamuud iyo shaakir ay wadaan waana dagaal ujeedadiisu markasta oo iyagu siyaasadda ku qaloocan tahay ay wax ugu dhimaan dadka reer xaraale haddaan la socotiin 17 xaaf markii la magacaabay caawida waqtigay ay xaraale qabsadeen maantana waxa weeye markii la yiri doorasho cadaada ka dhacaysa ayay waxa weeye dagaalka ku soo qaadeen dadkana waa dadkii aasayaasha ahlu sunna wal jamaa ee shaakiri iyo saadiq iyo macallin maxamuud iyo ashcari ay wax ku noqdeen ka hor lama aqoon dagaalkii ahlu sunna waxa weeye dadkii ansaaru ahlu sunna kale u ahaa ahlu sunna u ahaa waxa weeye ku ahaa xaraalay ahaayeen oo laga asaasay dagaalka ahlu sunna kadib markay dowladnimadii ku heleen oo Michael Kinti iyo Jaytin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labaduba loo yagleeray dowladnimadoodii Dhuusamareed wasiir maysan weydiisan xildhibaan maysan weydiisan deeqbixiyaasha adduunka caalamiga hantidii ka imaanaysay maysan weydiisan sii dowladda qoondada u lahaayeen maysan weydiisan waxba kuma qabsan laami kuma taalo haddana way soo weerarayaan dagaalkani waa dagaal siyaasadeed dagaal beel u dhaxeeya ma aha waad la socotiin hadda maxaabiistii lagu celiya caawida rag baa ku jiray caawida ahaa
hadda kuwa lahayo kuwa waxaa ku jira waxa weeye reer gurceela waxa la siyaasadaynayo oo laga dhigayo reerka ma ahana dagaalkani purely waa siyaasad waa suuqo markastoo qiil waayaanna waxay iyagoo attention seeker ah ama ku raadiyaan kusoo jeedinaya dawladda indhaheeda kusoo jeesanaya waxay weerar axmaqnimaa ku qaadaan xeraale waa tahay marka danjire hadda maxaa xal ma jira arrintan lagu dhexdhexaadinayo oo wax looga qabanayo wax xala waxaanu halkaan daliil uga soo jeedaynaynaa marka ugu horeysa waxa weeye dawladda dhexe ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre waxaanu ka xunnahay dad ka badan 50 meel ay ku dhinteen inaysan labadooda midna ka hadlin waxaanu ka xunnahay dad geedaha hoostooda ku jira inaan xataa humanitariankii wax la soo gaarsiiyey aysan jirin waxaanu ka xunnahay sida dhacdooyinka kale ka xandhaale balambal waxa weeye ii sheeg agagaarka galisoor ka dhaca sida lagu gurmado ama wax lagu taro inaan loo tarin xeraale waxay tabanayaan waxa muuqda waa dad samir badan waxaanu leenahay maxamed cabdullaahi farmaajo dadkani waa dadkii adiga xukunkaaga ku hoos jiray waxaanu leenahay madaxweyne u soo jeeso waxaa lagu gumaaday hubkii uu garad keenay 21 loo waday gacanta loo geliyey macalin maxamuud sheekh xasan iyo shaakir waxaa la socotaa 2 sano ka badan inay ballahawd iyo dhuusamareeb la soo aadeen waxaa ballahawd iyo mayeeraan inay la soo aadeen waxaad ogtahay inuu macalin maxamuud uga qudbeeyey askarta uu yidhi jannadiini gacanta idinkugu jirtaa gala xeraale waxaa la socotaa shaakir inuu ugu qudbeeyey waxaa la socotaa inay saadaq wasiirka ay ka dhigeen wasiirka ammaanka oo u yahay maanta shaakir iyo u yahay ninka la yidhaahdo macalin maxamuud markay intaa isku heleen hubkii dawladda iyo saadaq oo wasiirkii amniga ah ayay xeraale ku soo qaadeen dagaal waxaanu ka codsanaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu xaaf la xisaabtamo waxaan xaaf uga fadhinaa inuu ninkaa xilkana ka dejiyo maxkamadda heegna uu soo taago 4 nin ugu horeeyay macalin maxamuud oo ku xigo shaakir ku xigo saadiq ku xigo ashcari 4 nin maxkamadda waa in la keenaa waxaan rabnaa in waa tribunalka ay galaan waxaanu u haysanaa caddayn hubkii in dawladda dhexe ay dhiibtay uu garad ka soo dejiyey gobollada dhexe dhuusamareeb siday dhala'aanta lagu dhiibay gacantooda la rabay inay wadxo iyo wara dhuumaale iyo ceelbuur ay la aadaan ay la soo aadeen xeraale ay la soo aadeen ay 2 bilood askartii yacni waa wax aan waa wax lala yaabo waa wax cajiiba dawladdii dhexe inay iska indhatirayso dadkan gumaadka lagu wado oo dadkii iyadu ay waxa weeye legitimacyga ay siisay ay sharciyada siisay ay gumaadayaan aysan marna ka hadlayn oo ayna marna ka taakulayn oo marna yacni waa wax laga naxo waxaanu leenahay xaafow adiga waanu ku ognahay la haystaa tahay ma madax banaanid nimankaas ayaad ugu jirtaa waxa weeye xabsi haddii wax ay kugu dambeeyaan madax banaani aad haysato adiga iyo wasiiradaada iyo xildhibaanadaadu waxaanu kaa rabnaa justice we need it now we need justice and we need it now waxaan u baahannahay cadaalad waxaana u baahannahay hadda waa in la keenaa xilka saadiq laga qaadaa waana in waxa weeye dawladdu ay waxa weeye ay la xisaabtantaa laga bilaabo xaas lagu dhameeyo saadiq waa inay dawladda dhexe la xisaabtantaa xasan cali khayre waxaanu ka rabnaa inuu la xisaabtamo waxa weeye xaas wasiirka arrimaha gudaha sabriya waxaan rabnaa inuu la xisaabtamo xaas waxaanu meeshan waxaad moodaa dagaal laga raaliga yahay inuu ka socdo xeraale waxaan u mahad celinaynaa oo mar labaad iyo mar hore iyo mar dambe u mahad celinaynaa walaalaha reecadaado siday iskugu taxallujiyeen inay wax uga qabtaan dagaalkan waxaanu leenahay oo aan rabaa halkan inaan baaq uga diro saadiqow shalana waan kula hadlay maantana waan kula hadlayaa shayman yuu baan ku leeyahay caari caleeg baan ku leeyahay waxaan ku leeyahay dad masaakiino walaalahaad isku dirtay maanta jamaal sheekh yuusuf oo daadii kaa weynayta wuxuu ku jiraa maxaabiista aanu halkan u imid oo aan rabay inaan gacanta ka sii daayo waxa weeye walaalaheedku ku qabtay dagaalkaa dadka yaryar usoo diraysaa darajada ku raadinaysa jooji baan ku leeyahay waxaan ku leeyahay dhiigga dadka ha ku gorgorsamin waxaan leeyahay ma qaadan doono mana ku raalli noqon doono maantay waxaan u sheegayaa xildhibaanada iyo wasiirada
يضبط الدولة بدها وجرة أما قلب وجرة دكتور حرارة وحنا عام أياد مدح إذا تسارن واحد قبتين إن دكتيني دور شرع على كذا عيفتشون بيجوا إلى كبر برطمان ومن حيال مع محمود يا شاكر يا مثل يا أشعري إلى كل دور تام كرسي فحنا we can do it ما أنت ما نبتدي ويا وحنا تقدرنا دولة بدحان كل واحد ساتمنا وقلب ركبة كل واحد ساتمنا إن الله علي أنت عن كذا يستي بذاتنا عن كسر على regional ولا لها الدنيا كانوا وأمها أمرنا دولة بدحنا أرنتنا ويسق عندك بسطي وروح عربنا طلع سيدي اللي يقدر مري مركي اللي يقدر إن اللي يقدر مدو وحاربنا كعند على سيدي اللي يقدر مري إن اللي يقدر مدو وحاربنا أبرتي برب اللي يقدر سيدي اللي يقدر مري إن اللي يقدر مدو لو هاس أبلا يقدر بدو شرع وإنه بطل بديها وحنوبا هناي إن شرعنا الدسية وحنوبا بيا ولا لها كلا دجن وحنوبا بيا ambassador baaqaaga waan u gudbi doonaa waxaan ku weydiinayaa dawladda adiga miyay ku soo dirtay xiraale warar baa sheegaya in dawladda ay ku soo dirtay maya xasha lillahi waduntaydii baa ku xabaalano xiraalaan jeclahay xiraalaan anigu ku dhashay xiraalaan xaruntaydii ah dawladda soo dirsatay ma jirto halkeedaan u imid haba yaraatee markaan kadib ogaaday dadka deegaanka jooga ama waxa weeye dawladda in aysan waxa weeye waxay ka qabanayaan jirin ayaa damiirkaygu isoo diray in aan dadkaas waxa weeye dagaalka maanta intuu ka socda waxa weeye al-afdal iimaan intaan ka joojin karo inaan ka joojiyo waxaanu u baahannahay dawladdu inay arrintaas soo farageliso waxaan u baahannahay inaanu xasuusino maxamed cabdullaahi farmaajo 17 maalmood uu gobollada dhexe ku marayay inta dadka kale mashaariic ay ka codsanayeen annagu waxaan ka codsanay laba shay koo nimanka sufa uu dhisaayo dhiigeedii inay wax ku noqdeen bannaankana nalaga dhigayo xukunka nala dhisaayo la dhisayo dhoosamreed lagu dhoodhoobayo haddana aan u baahannahay xaquuqdeedii inaan ka helno aanan la fulin waxaa kaloo ka codsanay dhexdooda ikhtilaafka uu ku dhex abuuray macalin maxamuud walaalaha reer hurshiye xeraale in uu wax ka qabto labadiibana waxba kama qaban bal iska dhaafay waxa weeye hubkii oo isagu soo dhiibay oo garad uu soo dhiibay annagoo og inuusan ahayn ujeedadiisu in reer xeraale lagu laayo laakiin aanu nidhi aqoonta aan iyaga u leenahay shabaab lalama aadayo xeraalaan lala aadayo lagu tala diiday xeraale lagu gumaaday waxaanu leenahay maantay caanadaasay dabadoodaa la qabtaa dawladda ha u soo jeesato dadka barakacay ee geedaha hoostiisa fadhiya ee lagu gumaaday gardarrada ee hadda waxa weeye tiknikada loo soo wato ee saaka ugu dambaysa madaafiicda lagu soo ridayay dawladdu waa inay arrintaa wax ka qabataa waa tahay ambassador halkee saaka madaafiicda laga soo ridaya waxaa laga soo riday mayeeraan baa laga soo riday waxa weeye haddeertaan waxa weeye abaabulka ka socda waa la ogyahay rag ka mida woolooradii hore ayaa dhuusamareeb yimid waan ognahay waa la soconaa waxa weeye in loo keenay in ay waxa weeye inay ku jiraan aakhiru laxda inay abaabulka ugu dambeeya soo wadaan biidni illaahi alkariim waxaanu leenahay wamakaru wamakarallah wallahu khayrulmaakiriin nasrun min allahi wa fatxun qariib haddii ay gardarrada ay wadaan aysan joojin siday ugu jabi jireen bay ku jabriyaan biidni illahi alkariim waxaan jeclaan lahaa marka inaan fursaddan uga faa'iidaysto walaalaha dulmaamayaasha dibanaha maqsuudka labada dhinac ku kala jira siyaasadda lagu kala dhaqaajiyey hurshe iyo xeraale u kala dhashay waxaan leeyahay walaalayaalow waxa weeye dagaal wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay walaalayaalow waad aragteen inaan maantayso colaadiina la kala jeclayn waxaad aragtiin in aad maantayso waxa weeye xaquuqdii aad lahaydeen inaan laydisiin inaan laydinku kala dhex jirin ilaa iyo reecadaada mooye walaalayaalow waxa weeye caqligiinu ha shaqeeyo walaalayaalow caanaqdaasay dabadooda la qabtaa walaalayaalow kugu dhimaya kaa dhimada ha la iska dhaafo walaalayaalow nabad ha la raadiyo maanta ha laga koro wixii hore war nabad imaada walaalayaalow xataa haddaad waxa weeye adinku intaad maanta soo raaci lahaydeen sufo oo dagaal soo qaadi lahayn waxaanu ku qasbaynaa reer xeraale inay idinkaga baxaan magaalada oo idinku soo degtiin waxa weeye walaalayaalow xalka xabad kuma jiro imaada walaaltinimo ku imaada
aan ku wada hadalsiino waxaa tihiin midigtooda iyo bidixdooda waxaanu ognahay waxa weeye maanta waxa meeshan ka socda inay tahay waxa weeye alqaatil walmaqtuul fi nnaar walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati baad waxa weeye meeshan ka socota gacmihiina ha isku halaaginina walaalaha reer hurshiye reer xeraale waxaan leenahay walaalayaalow caqliguna ha shaqeeyo walaalayaalow cidna idiinma maqna coolna idiinma falna walaalayaalow soomaali haddii waxa weeye ay maantaytu waxay aad ka mudnaydeen kama aadnaan helin dowladdii dhexe waxaad ka mudnaydeen kama aadnaan helin walaalayaalow nabadaanan isugu baaqaynaa walaalaha reer hargeysa oo maantay telefishinka hoonkeeda ka fiirsanayo oo nabadda ku baaqay waan soo dhawaynayaa waana dhawri la'nahay qof kasta oo arrintan wax ka qabanaya waxaanu leenahay yaa marxaba bikum baan leenahay soo dhawaada gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa waad naga soo daahdeen waxaan leenahay odaashii reer hargeysa waan idin sugaynaa adinka ayaa waxa weeye baaqiina aanu ku diirsanay walaalihii reer cadaadana waxaan leenahay taladu meelaysan jirin baad ka raadiseen shalay war waxa wax nagu gumaadaya naga qaato talado mar labaad arrintii fursaddiina siiyo annaga waxa wax nagu wada oon u baahannahay in laga madax banaanaysiiyo walaalaha reer hurshe waa macal maxamuud iyo shaakir iyo ashcari ka madax banaanaysiiyo walaalayaalo intaasaan ku baaqi lahaa waa tahay danjire adigoo mahadsan oo aan kaga mahad celinayno mar labaad iyo mar saddexaadba aasaasayaasha idaacadana aad ka mid ahayd waan kaga mahad celinayna intaasi waxaan jeclahay inaan ugu dambayntii fariintaada ugu dambaysa dhinacyadan dagaalamaya aad gaarsiinayso wallaahi fariintan waxaan leeyahay walaalayaalo wixii dhacay waa dhaceen ha dhicin maxay u dhaceen ilaa wayba dhacdee dhacdada xaladhaye ka noqo dhayay qalbiyada dhayay walaalayaalo wixii dhacay waa dhaceen walaalayaalo wiil colaadkuma waxa weeye wiil colaadkuma dhashee waa ku dhintaa walaalayaalow tun sagaara wax la kala gooyo ma leh aniga iyo saadir waxa weeye waxaan kala tirsanaa in adeerkaygii labaad ayaa dhalay war waxaanu waa family waa qoys ma aha qabiil ma aha waxa weeye kan kugu dhimay oo kaa dhimayda shalay wixii aan ka digay baa maanta ka dhacay oo waxa weeye 2017 ka dhacay ayaa maantana ka dhacay wiil iyo abtigiis baa isku dilay waxa weeye wiil iyo adeerkiis baa isku dilay labadii waxa weeye halka koox ka tirsanayd oo ilma adeerka ahaa oo waxa weeye ciyaartooyga ku dhintay war walaalayaalow caqliga ha shaqeeyo war walaalayaalow waxa weeye midigtaada inay bidixdaada goyso wax macnaa ay soo siyaadinaysa male waxaan leenahay oon ugu baaqayaa nabad labada dhinacba inay isugu yimaadaan waxaan leeyahay degaanka dadka jooga oo walaalaha jooga oo qabaa'ilaadka la degan waray waxa weeye qoom dhan baa waxa loo haraagay laba digaag oo isku fiirsadeen war waxaan idin leeyahay dadkaa isku fiirsanada laba isdishay isma heshiisiyaane waxaan leeyahay walaalayaalow soo dhexgala faaslixu bayna akhawaykum u soo dhexgala soomaali meel kastay joogta arrintan waxa weeye waa laga seexday ha loo soo tooso ha loo soo gurmado saasaan ka codsanaya walaalaha soomaaliyeed oo dariska dawladda ka codsanaya inay maantayto waxa weeye il naxariis leh ay reer xeraale kusoo fiiriso reer xeraale iyo reer hurshana dadooda burcad allah isku mariyo heshiis caama allah dhex dhigo waxa weeye caam ahaana soomaaliya oo dhan walaalaha soomaaliyeed waxa weeye midnimo allaha siiyo ilaahayna nabad allaha siiyo soomaaliya o dhan khaas ahaana dadka walaalaha ilma adeerka labada kala tirsado kan u fogna saddexda kala tirsado ilaahay waxaan uga baryayaa intii waxa weeye fitnada ku dhex waday ilaahay inuu soo hanuuniyo haddayna hanuunsanayna ilaahay inuu ka qabto iyagana wanaagooda isdhex tuso intaasaan ku baaqi lahaa saadir